السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد جارسي مركز سود وهذا وحان هرؤسي ودي دونا كورس كيني هاي مايكروسوفت اكسل معناتنا waxaa qaadan doonaa 10 keeni 10aad 10 maanta waxaa ku baran doonaa wax loo yaqaan basic formula markii la isticmaalayo excel ka sidee xisaabaadka loogu isticmaalaa marka advanced ayadoo waa inoo imaan doontaa laakiin waxaa arki doonaa basic formula functions ka afarta qaybood ee xisaabta ay ka kooban tahay hadii aaleed isku darka kala jarka isku qaybinta isku dhufashada sidee ayadoo basic ah loogu isticmaali karaa Microsoft Excel kusoo dhawaad 10keena maanta markii la joogo Excel ka waxaa ku sameyn kartaa add ama isku dar subtraction oo kala jaris ah multiplication oo isku dhufasho iyo divide oo ah isku qaybin marka aan rabno inaan ka shaqeysiino hadda tusaale multiplication ku wuxuu sameeyay 8 lagu dhufto 4.7 waxay noqonaysaa 36 isaga ayaa Excel ka ku sameeyay marka qofka hal mar ayaa qaadada geli doonta kadibna isaga ayaa ku sameey doona marka waxa soo dhan xisaabaad ah ayaa lagu qaban karaa marka aan tagna qaybta practice ka soo aragno sida loo practice gareenayo tusaale hadda waxaan rabnaa inaan content item ka iyo quantity price ka aan isku dhufano waxaan sameynaynaa halkaas ay ku dhufanaysaa waxa leedahay equal quantity ga calaamada star ka ah keyboard kayga lagu garaacay price ka dan waxa dhigi doonta enter waxa ku soo bixi doonta 6 lagu dhuftay 2 waa 12 dollar ayuu sheegani total cost ayuu yahay outfit ka soo barna ayaa ku sameyn karnaa si aan hal mar isugu geyno value gan sababta u qaldo waxay tahay ma kamid ahan xaaliyada isku garaac sababta inta waxba kuma haysta marka soo kan waxa loogu talagalay in lagu sameeyo isku darka si oo total ahaan oo ugu soo sameeyo isku darka marka soo waa wuxuu waayay qaacidadii uu ku keeni lahaa marka isku darka ayaa laga rabaa marka soo marka wuxuu sameeyay total order 1 wuxuu sameeyay total kiisa iyo total order 2 oo labadaba inuu soo sameeyo marka soo marka hadii aan rabno inaan combine gareyno labada total order ama laba shay isku geentooda maxaa u baahnaa marka kaliya waxa sameynaysaa equal dan waxa leedahay total order 1 plus order 2 ku sameeyay si toos ayuu wuxuu sameeyay labadii order ayuu isku daray marka wuxuu ku sii sameeyay in uu ku siiyo maxaa la yiraahdaa total kan ayuu halkan ku keenaya waxa rabtaa qofka marka in discount u sameeyay tusaale ahaan labadiisa order 86 dollar isku noqdeen 10 dollar discount u sameeyay after marka discount meeqa laga rabaa equal ayaa leedahay dan waxa leedahay kala jarista marka alatid total ka horeetay minus discount ka loo sameeyay coupon-ka enter si automatic marka 76 dollar ayaa looga rabaa marka waxa rabtaa in aad u qeybisid 5 qaybood qiimaha laga rabo maxaa la yiraahdaa inuu ku siiyo marka soo marka isku qaybinta marka aragtid equal ayaa leedahay dan qiimaha aragtid loo qeybiyay waxa dooran doontaa calaamada loo qeybiyay dan selka kale intee enter 15.3 marka soo marka isku geynta kala jarka isku dhufashada iyo isku qaybinta Microsoft Excel waxa uu isticmaali kartaa sida ugu iibsan uguna fiican markii la joogo xisaabaadka intaas iyo 10keena maanta ku iiga waa inuu 10 ka xiga insha Allah